وأي دجالك مالك سدحات أي على مرايا إيران إسرائيل قولوا أنا حتى أصلية هاي إيران ما يسم فيلينين أي هرت صائف بحي ولي بوح كاجا سيدران دجال كان إنه سير صعدة وسير ديراده يدن وجرت متقنا إسرائيل ما إيران يدن وجرت أنت أصلا دي شرح دونا لكن مركو هوري waxaa jirto su'aal basic ah dadka isweydiinayaan habeen walba dadka facebook igala socdo saddexdii habeenada la soo dhaafay waxaa sheeko dhan noo noqotay aan ku qaraaxayna dirinta noo fidsan shaaxa noo yaal tarmuusa noo yaal waa la soo tuurayay iiraan hadda gantaalada ka soo bixinay ciraaq ay soo dulmarayaanay jordan ay soo dulmarayaana waxay noo noqotay sheeko su-aashiis weydiinta mudana waxay tahay sidee waxaan yacni dhanka militariga markaa ka fiirino sidee gantaalo iiraan laga soo tuuray hawadaas sawir xitaa dadka ay qaqaataan hadda xalay muuqaal waxaa idinla sheergareeyey lubnaan kuwa aroos meel aroos ka jooga iska dhaanteenaayo gantaaladii kormaraaya sawir iyo muuqaali wax ka qaateen waay sidee marka waxaan rabaa waxyar inaan sharxo marka hore waa inaa ogaataa masaafada u dhexeyso israa'iil iyo iiraan dad waxaa laga yaabaa dad badan intiina badan fahansantihiin aqoon-yahanaatiin ayno waa ogahay laakiin dadka kale nala socdo masaafada u dhexeyso iiraan iyo meeshan hadda israa'iil ay ku taalo waa ka soo qaad boosaaso iyo nairobi waa boosaaso iyo nairobi isku dhow yihiin laba dal ay ku kala yaalaan soo maaha soomaaliyana waa dalkeena soomaaliya wuxuu ka mid yahay dalalka ugu waaweyn qaaradda africa marka ciyaar ma aha waa adoo boosaaso ka soo baxday gantaal ka soo tuurtay saas u dulmaray qeybihii kale oo dhan ee soomaaliya kenyada sii dulmaray oo nairobi ku habsaday horta masaafo ahaan waa inaa saas u fahantaan hadda 3,000 iyo wamaazaad ay sii marayaan gantaaladii ay soo tuureen iiraan ee ku habsaday israa'iil marka su-aasha weydiinta mudana waxay tahay si basic ah qaabka ugu fudud aan u sharxi karaa waxay tahay gantaaladan qofaa soo tuuro qofka gantaalada soo tuuraayo aqooni u leeyahay gantaalka waa sidii hadda dadka taleefanada haysto ma aqaan soomaaliya in laga isticmaalayo in kale laakiin dadkeena qurbaha joogo kenya uganda maraykan yurub waxaa isticmaala wax loo yaqaanaa gps tusaalaa ku siina haddii mombaaso aadan aqoonin meesha ku taalo oo nairobi aragtid inaad kasoo baxdid gaari aa qaadatid gps-ka waxaa leedahay mombaaso igey gps-ka wuxuu ku tusayaa dhibic dheer oo wadadii aa mari lahayd saacaddii intaa kugu qaadan lahayd distancihii aad safraleed masaafadii aad safraleed wixii dhan kuu sheega gantaalka laguu sheegaya waa sidaas oo kale ninka gantaalka soo tuuraayo wuxuu og yahay meesha ay ku dhacayso heefa qaybta shidaalka ee israa'iil qaybta teknolojiyada qaybta militariga gantaalka waa lasoo programinaaba no iiraan marka laga soo tuuro marka hawadaas iska socdaa qofaa maamuloy adig ma ogid hawadaas iska socdaa meesha loogu talagalay markuu gaaro uu hal mar soo hoobanaa waxyaaba marka muuqaalada aragteen madfaca saa usoo hoobanayo waa adduun tegay abow annaga isku hurdnaa hoobiis loo tuuro iyo baalkan garbaha laga tuuro bes aa ku dhegni 93 ilaa hadda meeshaasa taaganay marka gantaalada lasoo tuuro waa laba nooc waa inta hadda israa'iil lagu garaacay waa ballistic iyo cruise labadaas ay soo tuureen xitaa hypersoniga waa mid shanqarta ka dheereeyo xiimaayo waay maba arkaysid bagaas weli iiraan maba isticmaalinba marka labadan hadda ballistiga iyo cruiseka eber looga dhigay israa'iil ma filaynin horta hal su-aal dunida isweydiinaysa xitaa maraykan uu xanaaqsan jirto israa'iil waxaa loo haystay difaaca cirka inay aad ugu fiican yihiin weliba 3 nooc ay qabaan oo difaaca cirka ah iiraan gantaaladii waa iska soo dulmareen xalay waa la qaxay caawa godadka hoostooda lagu jira waaye ka gudub xaqiiqda marka ka hadalno guusha dagaalkan inuu sii dheeraado waxay raacaysaa iiraan ay raacaysaa sababta hadda idin sharxaya israa'iil horta dagaalka waxay u gashay waxay islahayd afartoo gantaalo waaweyn ku dhufo duqeey meelaha militariga iiraan meelaha nuclearka ay ku samaysanayeen gas usii ka soo laabo dib u dhig barnaamijkii nuclearka iyo bacriminta ay wadeen xoogaa dib u dhiga islahayn sheekada way dheeraatay israa'iil meeshada ay degan yihiin waa meel aad u yar waay xaqiiqatan waa gobol yar oo gobolada iiraan xitaa haddii 4 meel loo jeex meel ka mid ah ee kasii yartahay dhaqaalahooda wuxuu ku tiirsan yahay tourismka dalxiiska waa dhul saxaro ah beero iyo waxba lagama fasho marka dadkan meelaha qadiimiga jecel maraykan iyo yurub iyo usoo ordo dhaqaalo fara badan ay ka helaan meesha labaad oo ay dhaqaalo ka helaan waa investment yuhuudda new york degan yuhuudda london degan investmentye ka samaysa dabaqyada dhaadheerka dudumaya arkaysiin dadkaasaa yani investment iyo kuwa kale oo maxaa la dhihi jiray dadyow kale ah marka investmentigaas ama maalgashiga israa'iil lagu sameeyey iyo sidoo kale tourismka dalxiiska dadku imaado dhaqaalaha ugu badan labadaas ay qabtaan dalxiis
eelaboor la-aan ma dhici karo deked la-aan ma dhici karo eelaboorkii 3 habeen uu xiran yahay Ben Gurion ma uu midka ugu weynay ee Israel waa qam waayahay labadan markaa kasoo tagno dalxiiska iyo maxaa la investmentiga oo tabaqyada dadka dhis laga duduminayo markii laga soo tago qaybta kale waa tiknoolajiyada iyo qalabka militariga ee iibiyaan iyo wixii waa Soomaa iyo shidaalka yaroo meel u kaydsan caawa ilaa xalay Iran waxay gantaala la dhacday Haifa oo ah meesha ugu badan tiknoolajiyada iyo ay yaalaan maxaa la dhihi jiray tiknoolajiyada meesha taalo iyo sidoo kale meesha shidaalka uu ku kaydsan yahay bafta aa ka dhacayso marka horta xaniyaha meesha ugu xumeed horta waa la iska qabtay Iran marka eejiye u tahay cunaqabatayna u tahay oo Israel ay saartay hadday sheekasaan ku sii socoto iyada wixii laga dilay laga dilo wixii lagu dhufnaa lagu dhufto iyadana hadday gantaaladan saan iskaga soo tuuraysa habeen walba la qaxay la ordaayo dhulka hoostiisa la galaayo ciidan ayada hadda wax asada 3 habeen la soo dhaaf Israel waxa la leeyahay lacag kor u dhaafaysa 20 bilyan oo dollar ah beer darowday oo dhaqaalihii elbork soo gali lahaay kii dekada ka imaan lahaay kii shidaalkii kii investmentkii kii dadkii imaan lahaay oo booqashadii wixii imaan lahaay wixii oo dhan zamway Netanyahu marka wajigiis waa gudud waay sheekada marka de saan ku sii socoto Iran tina aan la gabigeeda la burburin karin oo bodo laga dhigi karin oo saan ay ku sii socoto Israel tan habeen walba wax dukum daakum allora marka sheekada waa cadday ani wax ila tahay aaw markii si loo fiiriyo Netanyahu ayaa diyaar u ah in wada hadal la galo Iran miiska imaato oo garka iska qabso walaalow waqtuga shidaalkan aan dhahay nuclear kan asimisidis naga dhaaf inaan uga reey hadda taas dhacdo inay dhacayso ani ilama aha Iran gacana u taagan guul weyn ay gaartay carabtii waa u dhamaatay dhulkaas cidaas ka tagnayso wajiga kale ee banana wuxuu yahay in isaan isku sii dagaalaan Iran waa dhul aad u weyn ilama ahan Israel si kasta u duqeyso si kasto loo dilo xitaa Khamenei hadii la dilo nin waxaan waa tira bateen godad kustiisa ku jiraan meel kasta ay joogaan boqolaal hadda milyanaad waaye ciidamada reserves ku ah Iran ee u joogo hadda xitaa galabtadan waxa hadlayay Mareykan sargaal ah wuxuu dhahay mataqaana Iran afar sargaal ah dilay 8 u kaydsan 8 yaa dishay 16 u kaydsan asa dhahay ani maaya 16 yaa dishay marka way ka sii taxdireen way ogeed Israel ee aan dhahay Iran mudooyinkii la soo dhaaf sanadii la soo dhaafo dhantan inay dhacayso waayeen ama Mareykan soo weerar doono ama Israel ay soo weerar doonto marka waxay sameeyeen halkii sargaal oo adigu warkan wajigiisa arkaysid 25 ka sii dambaysa kan dilba adi ko kale soo taagan oo booskiisa haay hadda soo xaqaaga fil kuwii gantaalada soo tuurayay Israel waxay tiri waa baabi waa dili caawadan muuqaalka ah duubaayo aniga laba ay tahay laakiin iga habeen u tahay gantaaladu way soo socdaan kii aad dishay aawe ma soo meedah mubaashi soo tuurooya soo ashbay istaag oo ay salaam